shirkan aan caadiga ahayn oo maanta isugu yimaadeen madaxda Hirshabelle waxa shir gadoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare waxaana ku wehelinayay ku-xigeenkiisa Cali Gudlaaw Xuseen shirka waxa ka soo qayb galay oo goobjoog ka ah qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo saraakiisha laamaha amniga sida booliska iyo nabad sugidda shirka waxa inta badan diiradda lagu saarayay sidii looga feejignaan lahaa loogana hortagi lahaa cudurka coronavirus oo dhibaato ba'an ku haya dunida oo kiiskiisii ugu horreeyay laga helay dhawaan magaalada Jowhar kadib markii xildhibaan Khaliif Muumin Tuux oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabelle sidoo kale dhaha wasiir dowladii wasaaradda cadaaladda dhawaan uu geeriyooday cudurka coronavirus magaalada Muqdisho waxa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in isugu maatanka dadka inay yareeyaan sida aad ka warqabtaan cudurkan aad loo kala qaadaa daawada male talaalna male sidaas daraadeed sida kaliya oo lagu maareyn karaaho waa isdhowrid iskarantiilid fayadhowrka iyo nadaafadda iyo guud ahaan caafimaadka guud oo dadka oo isu imaadyada iyo fadhiyada iyo in mataqaana aad loo xakameeyo sidaas daraadeed dhowr qodob oo muhiima ayaan rabnaa inaan adkayno maantana aan aad uga doodnay oo go'aan aan ka soo saarnay arrinta koobaad waxa waaye in la joojiyo la xiro lala socdo dhaqdhaqaaqa muxuu ahaa jaadka iyo dadka la socda oo ama xamar ka soo gala ama Itoobiya ka soo gala ciidamada amniga dhammaantood labada gudoomiye gobol waan amarnay in dhaqdhaqaaqaas ay joojiyaan sida ugu dhaqsaha badan aad runtii muxuu ahaa arintaas culays uga jira jaadka tuuba lagu soo geliyaa Hirshabelle arintaas runtii arin aan xamili karna maaha amarkaasna waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan in muxuu ahay resultigeeda la heli doono arinta labaad waxa waaye isu imaadyada makhaayadaha iyo fadhi ku dirirada iyo meelaha la iskugu yimaado oo wax micnaaho hadda mataqaanaa hadal iyo sheeko iyo war aanan muxuu ahay aan laga faa'iideyn ayadana in la joojiyo taasna ciidamada ammaanka booliiska gaar ahaan waan amarnay arintaasna sidaas muxuu ahay in lagu joojiyo bandowga lagu soo rogay muxuu ahay wadanka guud ahaan gaar ahaan caasimadda oo anaguna aan daris la nahay habeenkii ayadana in muxuu ahay magaalada aad loo xakameeyo oo isu imaatinka iyo fadhiyada iyo isu socodka la joojiyo Ibrahim Ali Nuur TV Universal Jowhar